nolosha aadamaha waa safar imtixaan, waa waddo ay ka buuxaan caqabado, go'aanno adag, iyo duruufo mararka qaar qofka ku rida mugdi iyo quus. Laakiin naxariista Alle subxaanahu wa tacaala waa mid ka ballaaran wax kasta, xitaa marka addoonka uu dareemo inuu ku jiro mugdigiisa ugu horeeya, iftiinka Alle wuu u dhow yahay. Qisadeenna maanta waa mid ka mid ah qisooyinka ugu cajiibsan uguna casharada badan ee ku soo arooray Qur'aanka Kariimka ah. Waa qiso ina baraysa macnaha samirka, halista degdega ah, iyo awoodda cajiibka ee ku jirta hal duco oo si daacada qofka u yidhaahda xilli uu dhibaataysan yahay. Soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada Nebi Yuunus calayhi salaam. Waxaana si qoto dheer u dhexgeli doonaa safarkiisii, laga soo bilaabo magaaladii uu ka soo carooday ilaa hirarkii badweynta ee halista ahaa iyo mugdiyadii saddexda ahaa ee caloosha nibiriga. Qisadeenna maanta waxay ka bilaabanaysaa magaalo la oran jiray Naynawa oo ku taalay dhulka Ciraaq ee maanta. Waxay ahayd magaalo weyn oo barwaaqo ah oo ay ku noolaayeen dad lagu qiyaasay inay ka badnaayeen 100,000 oo qof. Laakiin barwaaqadaasi waxaa barbar socotay fasaad iyo gaalnimo baahsan, waxayna ka tageen caabudidda Alle keliya, waxayna u leexdeen inay caabudaan sanamyo ay gacmahooda ku samaysteen. Shirkigii iyo macaasidii ayaa noqday dhaqankoodii. Naxariista Alle wuxuu u soo diray nin ka mid a dadkooda, nin sharaf iyo wanaag lagu yaqaanay, si uu ugu digo uguna yeeray jidka toosan. Ninkaasi waxa uu ahaa Nebi Yuunus calayhi salaam. Nebi Yuunus calayhi salaam wuxuu bilaabay dacwaddiisii. Maalin iyo habeen wuxuu dadkiisa ugu yeerayay inay Alle kaliya caabudaan, kana tagaan sanamyadan aan waxba anfacayn, wuxuuna uga digay cadaabka Alle haddii ay ku sii socdaan baadilkooda. Wuxuuna dhihi jiray, qoomkaygiiyow, maxaad u caabudaysaan waxaan idin maqlayn, idin arkayn, waxna idin tarayn? Caabuda Alle, kii idinka idin abuuray, idinkiiyo awoowayaashiinnii hore, ka toobadkeena dembigiinna inta uusan cadaab xanuun badan idin imaan. Laakiin dadkiisii way dhaga adeegeen, way ku jeesjeeseen, way beeniyeen, waxayna ku adkaysteen gaalnimadoodii. Sannado badan ayuu u yeerayey, laakiin cid yar mooye cid kale ma ajiibin yeeritaankiisii. Nebi Yuunus calayhi salaam wuxuu ahaa bashar, dulqaadkii iyo samirkii ayaa ka dhammaaday. Wuxuu arkay madax adayga qoomkiisa, wuxuuna dareemay inaysan jirin rajo ah inay soo noqdaan. Isagoo aad u caraysan ayuu go'aan degdeg ah qaatay, wuxuuna go'aansaday inuu isaga taga magaaladaas iyo dadkeeda, isagoo isleh hawshaadii way dhammaatay, cadaabka Allana ha ku dhaco. Laakiin waxa uu sameeyey hal qalad oo weyn. Wuxuu baxay isagoon idin ka helin Rabbigiisa. Ambiyada waxay ku dhaqmayeen amarka Alle, laakiin degdega iyo carrada ayaa Nebi Yuunus ilowsiiyey inuu sugo amarka Alle. Nebi Yuunus calayhi salaam wuxuu ka tegay Naynawa isagoo u malaynaya inuu ka baxsanayo qoom madax adag. Wuxuuna yimid xeebta. Wuxuu helay markab diyaar u ah inuu baxo. Dadkii markabka la socda way aqbaleen, wuuna la raacay. Markii uu markabka fuulay, waxaa qalbigiisa ku jirtay degenaansho ku meel gaar ah, isagoo dareemay inuu ka fogaanayo meeshii dhibaatada. Markabkii wuxuu si nabada u dhex galay badda, laakiin si lama filaan ah jawigii wuu isbedelay. Dabaylo xooggan ayaa bilaabmay. Hirarka baddana waxay noqdeen kuwo la mudo buuro waaweyn oo markabka ku soo dhacaya. Markabkiina wuxuu halis ugu jiray inuu dego. Dadkii markabka saarnaa way argagaxeen, waxayna bilaabeen inay tuuraan alaabtii iyo rarkii saarnaa si ay markabka u fududeeyaan. Laakiin waxba iskama beddelin. Waxay is yidhaahdeen, arrintani ma ahan mid caadi ah. Dhexdeena waxaa ku jira qof dembiile ah oo Rabbigiis ka soo cararay. Waxay go'aansadeen inay sameeyaan qorituur si loo ogaado qofka dhibaatadan sababay. Qofkii oo qorituurka ku dhaca ayaa badda lagu tuurayaa si ay inta kale u badbaadaan. Qorituurkii waa la sameeyey, waxa uuna ku dhacay Nebi Yuunus calayhi salaam. Dadkii way rumaysan waayeen, waxayna arkeen ninkan wanaagga iyo sharafta ka muuqata. Waxay is yidhaahdeen, suurtagal ma ahan inuu ninkani yahay. Markii labaad ayay sameeyeen, waxayna mar kale ku dhacday Nebi Yuunus calayhi salaam. Markii saddexaad ayay sameeyeen sidoo kale. Wakhtigaas
nebi yuunis calayhi salaam wuu fahmay wax kasta, wuxuuna gartay in kani uu yahay imtixaan alle kaga yimid qaladkii uu sameeyey darteed. Isagoona cabsi iyo argagax muujin ayuu qirtay, wuxuuna yidhi, aniga ayaa ah addoonka rabbigiisa ka soo cararay. Aniga igu tuura badda, markaas hirku wuu idinka degayaa. Dadkii way ka naxeen, laakiin ma aysan haysan waddo kale. Way kaxeeyeen oo waxay ku tuureen badda, iyagoo u malaynaya inay tani tahay dhammaadkiisii. Isla markiiba baddii way degtay, duufaantiina way istaagtay. Laakiin Alle subxaanahu wa tacaala ma uusan doonayn inuu halaago nebigiisa. Wuxuu ahaa imtixaan iyo edbin. Allana wuxuu amray kalluun weyn oo ka mid ah kuwa badda ku nool inuu liqo nebi yuunis calayhi salaam, laakiin uusan dhaawicin. Wuxuuna amray inuu laftiisa jebin, hilibkiisana cunin. Kalluunkiina wuxuu hal mar liqay nebi yuunis calayhi salaam. Wuxuu is arkay isagoo ku jira meeluusan weligiis malaysan karin. Caloosha kalluunkan weyn waxaa ku dhex jiray 3 mugdi oo isdul saaran. Qofka caadiga ah xaaladdan oo kale waxa uu dareemaa quus iyo rajabeel, laakiin nebi yuunis calayhi salaam wuxuu ahaa nebi. Halkii uu ka quusan lahaa, wuxuu u noqday Alle, wuxuuna maqlay tasbiixda uunka badda ku nool. Isna waxa uu bilaabay inuu Alle la xuso, wuxuuna gartay qaladkiisa, wuxuuna Alle ka baryey cafis iyo naxariis. Wuxuuna la yimid ducadii ugu quruxda badnayd, uguna awoodda badnayd ee qof dhibaataysan uu la imaado. Wuxuuna yidhi eryadii qur-aanka lagu sheegay. Wuxuu yidhi, laa ilaaha illaa anta. Wuxuu ku bilaabay qiritaanka tawxiidka oo ah aasaaska iimaanka. Wuxuuna qiray in Alle keliya yahay kan wax badbaadin kara. Wuxuu kaloo yidhi subxaanaka, wuxuuna Alle ka fogeeyey wixii nusqaan ah. Wuxuu qiray in xukunka Alle uu yahay mid kaamil ah, uusan isagu lahayn wax cabasho ah. Wuxuu kaloo yidhi innii kuntu min adh-dhaalimiin. Wuxuu qirtay dembigiisa, ma uusan eedayn duruufaha dadkii ama cid kale. Eeddii isaga ayaa dusha iska saaray, isagoo muujiyey toobadkeen dhab ah. Ducadani waxay ahayd mid si toosa u gaartay carshiga Alle. Malaa'igtii ayaa maqashay cod ay garanayaan oo ka imaanaya meel aan la aqoon. Alle oo wax kasta og wuxuu ku yidhi, kaasi waa codkii addoonkayga yuunis. Alle wuu ka aqbalay ducadiisii, wuxuuna amray kalluunkii inuu nebiga ku soo tuuro xeeb cidlo ah. Nebi yuunis wuxuu ka soo baxay isagoo jiran, daciif ah, oo jidhkiisa u nugul yahay sidii shimbir baalasha laga rifay. Ma awoodin inuu u adkaysto qorraxda ama dabaysha. Laakiin naxariista Alle halkaas kuma ekaan. Alle wuxuu agtiisa ka soo bixiyey geed la yidhaahdo yaqtiin. Geedkani wuxuu ahaa mid si degdega u baxa, wuxuuna ahaa mid leh caleemo waaweyn. Geedkani wuxuu siiyey har, wuxuuna ka celiyey cayayaankii. Midhihiisana waxa uu ka helay cunto iyo nafaqo. Wuxuuna u ahaa daryeel degdeg ah oo Alle uga yimid, ilaa uu ka soo kabtay awooddiisiina ay u soo noqotay. Intaasi kadib, nebi yuunis calayhi salaam waxa uu yidhi, waxaan ku laabanayaa magaaladii Niinaba. Haddaba maxaa dhacay markii nebi yuunis calayhi salaam uu ka tegey magaaladii? Markii nebi yuunis calayhi salaam uu ka tegey magaalada, calaamadihii cadaabka uga digayey ayaa bilaabay inay soo muuqdaan. Daruuro madow oo cabsi leh ayaa cirka qabsaday. Magaaladii oo dhanna hoos ayay u degtay. Dadkiina waxay arkeen geeridii oo indhahooda hor timid. Markaas ayay xasuusteen hadalkii nebi yuunis calayhi salaam, waxayna yaqiinsadeen inuu run sheegayey iyo in cadaabkii Alle uu ku soo socdo. Argagax iyo qoommo ayaa qabsatay, laakiin halkii ay ka quusan lahaayeen waxa ay sameeyeen wax aanay ummad kala samayn. Waxay isugu yimaadeen fagaaro weyn, rag, dumar iyo carruurba, iyo xitaa xoolahoodii. Waxay kala dhex saareen hooyooyinkii iyo ilmahoodii, iyo xoolihii iyo dhashoodii, si ay oohinta iyo baroortay u badato, looguna muujiyo Alle inay si dhaba u jabeen. Waxayna iska tuureen dharkii quruxda badnaa, waxayna xirteen dhar qalafsan. Madaxa ayayna isu mariyeen dambas, iyagoo muujinaya dulli iyo alla u noqosho. Hal mar ayay Alle u qayliyeen, iyagoo si wadajira uga toobad keenaya gaalnimadoodii. Waxayna yidhaahdeen, waxaan rumaynay Alle, Rabbiga Yuunis, Alle oo ah kan ugu naxariista badan. Markii uu arkay toobadooda dhabta ah
iyo qoomadooda wuu ka aqbalay, wuxuuna ka fayday cadaabkii uu u diyaarinayey. Waxayna noqdeen ummadda keliya ee qur-aanku sheegay in iimaankoodu anfay markii ay cadaabta arkeen, sababtoo ah waxay ahayd toobad wadareed daacad ah. Nebi yuunis calayhi salaam markii uu soo caafimaaday wuxuu ku noqday magaaladiisii isagoo ka walwalsan waxa ku dhacay dadkiisa, laakiin wuxuu la kulmay aragti cajiib ah. wuxuuna arkay magaaladii oo dhan oo rumaysay oo noqotay ummad mu'min ah oo Alle caabuda. Farxad iyo yaab ayaa isugu darsamay, guushii dacwadana waxay timid markii uu isagu tegey. Allah inagu anfaco casharada ku jira qisadan cajiibka ah, hana naga dhigo kuwii ku samra, toobadkeena, kuna kalsoonaada naxariista Alle xilli kasta. Daawade fikirkaaga ku aadan qisadan lagula wadaag qaybta kommentiga. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusubna, nagu soo biir oo subscribe saar channelka si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu soo gelinno. Haddii aad hore noogu xirnaydna, muuqaalka leegdhe siina sheer garee. Mahadsanidin.